ayaa magacaabay mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. waaw ugu dambeyn waa la magacaabay Sidiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Madaale waxa uu noqonayaa ninkii labaad ee ku soo laabtay xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir. waa halbeega wararka iyo warbixin degdeg ah oo aan ku eegi doono Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu dambeyn magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir xilli dagaal culus iyo khilaaf weyn uu ka taagan yahay xarunta gobolka Banaadir. beelaha Mudulood ee deegaanka Muqdisho oo si weyn isugu haysta ubaruursi ka bilowday caasimadda Muqdisho iyo Galmaax Yunis oo dagaal ugu hanjabtay Xasan Sheekh Maxamuud xilli iyagu ay damaaci badan uga jireen xilka gudoomiyaha gobolka. warbixintan ayaan daawade ku eegi doonaa, balse marka hore sii sheer garee muuqaalkan oo leegna saar kuna soo biir boggeena Facebook ee halbeega wararka si aad ula socoto xogaha iyo muuqaalada halkan aynu ku baahino. waa hagaag aynu ku bilownee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 4 bilood kadib ku dhawaaqay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho xilli uu abuuray magacaabisan khilaaf weyn oo beesha Mudulood dhexdeeda ah. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale u magacaabay mar labaad uu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho. qoraal lagu daabacay Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu go'aankan qaatay isaga oo tixraacaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta in uu magacaabo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo laga dhigay Madaale. Xasan Sheekh ayaa u rajeeyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir in uu fududeeyo mas'uuliyaddan culus isagoo ku adkeeyay dhammaanba hay'adaha dawladda ay shaqo wadaagta yihiin inay si dhow ula shaqeeyaan maamulka cusub ee gobolka Banaadir. Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa hore u soo qabtay xilkan uu hayeyntii u dhaxaysay 2 November 2015 ilaa 5 Abriil 2017, waxaana sidoo kale xilligaas magacaabay isla madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muddo xileedkiisii koowaad. balse in mar labaad uu noqdo gudoomiyaha gobolka waa arrimo isbarkaday oo qaarkood ay ka dambeeyaan xidhiidhnimada qoys ee ka dhaxeeya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Yuusuf Madaale. balse magacaabista Madaale ayaa markan abuurtay khilaaf iyo xasarad siyaasadeed oo weyn xilli Mudulood intooda badan ay si weyn uga soo horjeesteen kulan ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay yeesheen beesha Galmaax Yunis ayay si weyn uga soo horjeesteen in Yuusuf Madaale uu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir, iyaga oo sheegay in looga baxay ballan Xasan Sheekh Maxamuud uu horay ula galay xilli sidoo kale ay xasuusiyeen in waqtigii Minraayo Xasan Sheekh uu dabada la galay iyaga ay si weyn u difaaceen ciidankii ugu badnaa ee badbaado qaran iyaga ay lahaayeen. Galmaax Yunis ayaa Xasan Sheekh Maxamuud ugu hanjabtay in uu bedelo gudoomiyaha gobolka ama wixii ka dhaca caasimadda mas'uuliyaddeeda isaga uu qaadanayo. xaalka Muqdisho ayaa mar kale qasan, Mudulood dhexdooda ayaa markan isku biratumanaya. ubaruursi ayaa naga socda gobolka Banaadir. isku soo wada duubo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay markan u muuqataa in meel walba khilaaf iyo dagaal siyaasadeed uu ka kacsan yahay. odayaasha Muduloodna markan ay kala irloobeen maadaama isla xitaa beesha Daa'uud ee uu ka soo jeeday Yuusuf Madaale aysan ku qanacsanayn in ninkaas loogu magacaabo gobolka, oo haddii la bedelayo Cumar Filish booskiisa ay wateen nin kale, hase yeeshee Xasan Sheekh Maxamuud ninkaas uu meesha isaga u geystay. xaalka ayaa mar kale isbedelaya, khilaaf siyaasadeed iyo mid dagaal ayaa Muqdisho mar kale ay fulanaysaa. xilka gudoomiyaha gobolka ee la magacaabayna waxa uu mar kale abuurayaa dhiilo iyo colaad sokeeye haddii Xasan Sheekh Maxamuud uusan ka hortagin. daawade fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay ku reeb qaybta hoose ee commentiska tan iyo kulan dambe nabadgelyo.